السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka waa anigoo cabdisalaan muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaad horeyba u soo aragteen sawirkan aad soo aragteen ayaan habeen doonaa waxaanu ku habeen doonaa waa applicationka Lightroom fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto video like noo saarto haddii aad naga daawanayso Facebook iyo TikTok waxaan kaa codsanaynaa inaad follow noo saarto aad baad u mahadsan tahay waxba hadalka yaan idinku daalin aan hore u galno muuqaalkan maanta waxaan gelinayaa galerigeena mobilkeena sawirka habeenayna waa kan sawirkan weeye waxaan ku dhufanna waa Lightroom baan ku dhufanaynaa okay xagga baan ka soo baxaynaa waxaan soo gelinayaa applicationka Lightroom waxaan ku dhufanaa all photos sawirkan aan soo qaadana xaggaas uu inoo soo geliyaa kadib sawirkeenana waa ku dhufanaa okay waxaan ka bilaabaynaa lightka xoogaa contrast dib ayaan u celinaynaa waxaan leenahay -11 highlight sidoo kale 100% waa celinaynaa shadowga xoogaa furaynaa waxaan leenahay +32 white-kana waa celinaynaa waxaan leenahay -60 iyo 53 okay black-iskana xoogaa waa celinaynaa ilaa 33 okay lightka xagga haddii aan ka soo gudubno waxaan imaanaynaa colorka price ka xoogan furayna waxaan leenahay +10 tempigana asna waxaan geenaynaa +8 saturation ka xoogan furayna waxaan leenahay +4 okay colorka haddaan koro ku dhufano xaggan waa colorka casaanka waxaan sameynaa colorkan xoogaa huuga waan furaynaa waxaan leenahay +6 luminance-gana waxaan leenahay 8 okay colorkan xiga haddaan ku dhufano huuga dib baan u celinaynaa waxaan leenahay -8 baan leenahay luminance-gana waxaan leenahay +8 okay colorkan xiga haddaan ku dhufano asna waxaa dib baan u celinaynaa saturationka waxaan leenahay +100% dib baan u celinaynaa colorkan sare huugana sidoo kale dib baan u celinaynaa colorkan xiga cagaarka haddaan tagno cagaarkaasna saturationka waan celinaynaa waxaan leenahay -100% dib nooga celi huugana sidoo kale asna waan celinaynaa okay hadda waxaan ku dhufanaynaa colorkan bluega waxaan ku dhufanaynaa xoogaa saturationka waa xir baa furaynaa ma badinayno okay intaan xaggaas haddaan aga soo gudubno hadda waxaan soo gelinaa colorkan kore saddexda goobaabin is dul saaran kadib xagga shadowga xoogaha huuga waxaan keenaynaa adiga bluega bibiyaha ayaan kusoo beeganaa okay saturationka xoogaa soo furaynaa waxaan keenaynaa ilaa iyo 51 okay weeyaan xaggan blankana waan furaynaa waxaan leenahay 90 okay xaggan haddaan u gudubno highlightka huugana sidoo kale meeshaan kii hore ayaan geenaynaa okay saturationkana waan furaynaa ilaa waxaan geenaynaa saturationka ilaa waxaan geenaynaa 50 okay blankana waan ku darnay 100% baan geenay okay xaggan haddaa inta aga soo gudubno waxaan soo gelinaa colorkan effectiga ayaan ku dhufanaynaa texture-ka xoogaa ku daraynaa waxaan leenahay +12 clarity-ga sidoo kale +8 baan leenahay vignette-ka xoogaa waa celinaynaa dib baan u celinaynaa vignette-ka waxaan leenahay -21 midpoint-gana sidoo kale waxaan leenahay maxay ahayd 45 -42 fadirkana asna xoogaa furaynaa waxaan leenahay +57 okay xagga haddaan ka soo gudubno waxaan tegaynaa detailiga sharping xoogaa furaynaa sharping ilaa 20 nose reduction xoogaa furaynaa waxaan leenahay 14 color nose reduction-kana sidoo kale waxaan leenahay 10 okay xagga haddaan ka soo gudubno waxaan soo gelinaa xaggan ayaan imaanaa xagga ayaan ku dhufanaa waxaan ka dooranaa colorkan uu lambarkiisu yahay 04 ayaan ku dhufanaynaa waa ka awaad aragtaan okay xaggan waxba kama sii bedelayno waan ku dhufanaynaa okay waad aragtaan sawirkeena markii hore sidan ayuu ahaa kadib waxaan u bedelnay sidan runtii aad buu u qurux badan yahay muuqaalkeena maanta inta ayuu ku egyahay fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato
waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto video like noo saarto haddii aad naga daawanayso Facebook iyo TikTokna waxaan kaa codsanaynaa inaad follow noo saarto aad baad u mahadsan tahay tan iyo intaan ku kulmeyno muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa waa anigoo Cabdisalaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo